بسم الله الرحمن الرحيم. وأن سلام يا صحفتي كردوانية هالكن جوكتا مانتا يو سراكيشا إذا ماذا إمكريشن كا ويجونا قابت كوسوغان هالكن جوكنا وحويان حرمتي ده إمكريشن كا أما عيدا كسعودال كا iyo controlka xuduudaha saxaafadda annaga u yeedhnay maanta si aan ugu gudbino wixii aan war hayno oo amniga ku saabsan waxaan idinku yeedhnay adinkoo mahadsan warka aan idiin soo gudbinayno inaad u baahisaan bulshada Somaliland iyo ciddii kale danaynaysa ay khusayso sababtoo ah amnigu uu ka dhaxeeya dadkoo dhan gaar ahaan uu ka dhaxeeya wadamadan geeska Afrika wixii amni darro ah ku yimaada haddii qolo ogaato qolada kale inay u gudbiso ayaa waajiba si dhibaatada ama mudarrada ka imanaysa looga digtoonaado halka waxaad aragtaan aad horena muuqaala uga qaadeen ragga halkaa taagan oo tiradoodu ay 3 tahay magaca what's your name you are from Your name, please. You are from? John from Nigeria. saddexduba saad maqlaysaan waxay ka soo jeedaan dalka Nigeria. Eedda halkan loo keenay waxa weeyaan qalabka halka aad ku arkaysaan waa qalabka laga sameeyo lacagaha. hawl badan iyo tabar badan oo la geliyay awgeed ayay ku suura gashay ragga eedeysanayaasha ah inay soo galaan gacanta immigration-ka habeen saddexaad goor habeenbarkii ah ayaa saddexdaan nin walba location gooniya ciidanku ka soo qabteen saraakiishu ku hawl jireen waxa kaloo jira dad muwaadiniin ah oo hawshaa intii aanu ku dhex jirnay iyagu nooga xoogaarsanaa oo nagala shaqeeyey nana siiyey xog badan oo aanu ku hawlgallo iyaguna qayb saddexaad qayb labaad bay ahaayeen oo ciidanku ka hawlgalay si ma garanaysa dadaal badanna ku suura geliyey arrintaas taasina waxay dhacday shalayto gelinkii hore xalayto oo bishu ahayd xalay oo bishan 12 ay 6 ahayd abaaro kowdii iyo rubuc ayaa la qabtay qalabkaas kaasoo muddo badan iyo meelo badan iyo wareeg badan ku suurta galay in ciidanka gacantiisa soo galo qalabkaasi watan haddeer idinku lahaa wax fara badan oo coosho meel yaalla oo muuqaal weyn samaynaya maaha laakiin waxa weeyaan wax macno weyn samaynaya sidaanu ku qaadanay waan la socodsiinay ciidanka haddii la yidhaahdo banka Somaliland waanu la socodsiinay in dad hawshaa ku jira lacag samaynta ay jiraan oo ay ka digtoonaadaan dadka lacagta ku hawlan ee caasimadda jooga iyo gobolladana ay la socodsiiyaan oo bankuna arrintaa uu ka warqaba waxa halkaa yaalla waa wax dhaqaalaheena intaynu haysanaba
lagu shuban karo oo ay ku geli karto gacanta nimanka halkaa jooga. Nigeria ka yimaadeen nimankani Somaliland bay joogaan, distance-ka u dhaxeeya intaa waa taqaanaan, bilaash umay soo socon, waxay u yimaadeen inay wax weyn oo hanti oo aanay lahayn ay gacantooda geliyaan oo ay ku maydhaamaan dhaqaalaha Somaliland. dowladaha kale aanu jaarka nahay iyagana waa u halis. waxa weeye ciddii maqlaysa warkan maqlaysa maanta ee dhegeysanaysa way khusaysaa iyagana inay ka digtoonaadaan ayaa lagaba maarmaana. haddaba waxani maaha wax Somaliland maanta ka bilaabmay, iyo bishii hore bilihii hore aad arkayseen dadkan oo kale in la qabtay wax bilaabmay maaha, wax caalamka ka jira weeyaan oo ragga qaabkan u shaqaysta dadka sidan u ceeshaa wixii ay meeshii ay uga suurta gasho inay hantidaas sameeyaan oo ay ku qaataan lacagaa dalku leeyahay. Maraykankana way ka dhacdaa, Yurubna way ka dhacdaa, Afrikana way ka dhacdaa, laakiin innaga waa waxyaalaha inagu cusub imika. waxaanan aada ugu faraxsanahay aada iyo aada ugu faraxsanahay bishii hore saxaafadda waan u baahinay 6 nin oo iyagana halkan la keenay oo saxaafadda qaarkood waa joogeen bay la tahay oo sidan oo kale loogu soo qabtay qalabka lacag samaynta. marka kumay guuleysan inay lacagteeda abuuraan oo ay ku qaataan, kumay guuleysan. waxaanay ku jiraan processkii xukunka maxkamadaha. kuwana kumay guuleysan inay wixii ay u yimaadeen dalka inay sameeyaan, sidoo kale kumay guuleysan. taasaa mahad weyna inaan maanta lacagaa dalkeena lagu doorsado oo dalkeena lagu sameeyey oo nimankaasi hirgeliyeen inaanay jirin. 100% baanu ku kalsoonahay markaan xoogaanu nahay goorta yimaadeen, intii ay joogeen, halkii ay mareen iyo wixii ay qabteen aanu la soconoon ka warhayno. waxaanu ku kalsoonahay inaanay samaynin waxba, laakiin trialkii ay wadeen aynu ka gaadhnay. ilaahay baana loogu mahadiyaa. waayo dhaawacina gaari bay noqon lahayd haddii taasi dhacdo, dhaawac dhaqaalehena gaari bay noqon lahayd. waxaan jecelahay dhaqaaluhu haddii dhaqaalaha lagaa weeraro si fudud baa laguu jebin karaa. xooggaaga iyo siyaasaddaada iyo hadafkaad leedahay intaba si fudud baa loo jebin karaa. marka ilaahay mahadii ciidamadu way foojig yihiin. maalin walba tan oo kale ama wax ka duwan oo dembiya ayay gacanta ku dhigaan. waa wax ilaahay loogu mahadnaqo inay ciidamadeenu ku baraarugsan yihiin wax kasta oo dembiya oo dhici kara, ama qof la dila ha noqoto, ama lacag la sameeya ha noqoto, ama wax kale oo haddii la idhaahdo dembi noqon kara ha noqote. waxaan ka hadlaynaa waa amni. dhacdadan aad duubaysaan iminka wasaaradda amnigu way la socotaa. ciidamada kale ee amnigu waa la socodsiinay. dadka waanagan u baahinayna iminka inay ogaadaan. waxaan ugu bashaaraynaynaa dadka dhaawac soo gaadhay inaanu jirin, lacageena iyo baanankeena iyo xawaaladaheena inaanu jirin ayaan aaminsanahay. waa sidaan aaminsanahay weye. marka kol haddii taa aynu haysano inay ka digtoonaadaan tan oo kale. raggan oo kale oo aan hore uga masaafurnay dalkana way jiraan oo iyana way bilihii lasoo dhaafay bay dhacday. waa layna soo sahansaday, laakiin ciidamada waxay ku dadaalayaan sahankaasi inaanu suurtoobin, wixii laga dabacsanaa inaanu suurtoobin. mar kale waxaan u mahadnaqayaa maxaan ku dhahdaa saxaafadda
iyo ciidankii hawshaa galay iyo cid kasta oo daraynaysa oo jecel inay hawshaasi guulaysato ayaan u mahad celinayaa. dadkii nala shaqeeyay ee muwaadiniintana waan u mahad celinaynaa. marka immigrationku stepka tallaabada uu qaaday, tallaabada ku xigta waxa weeyaan in ay la wareegaan ciidanka booliisku gaar ahaan qaybtiisa dambi baadhistu oo ay mariyaan processkii xukunka. isna insha allahu way saasay ku dhammaanaysaa, waanay ka warqabaan ciidanka booliiska iyo qaybta baadhistu way ka warqabaan. muuqaalka intaad aragteen qalabka iyo eedeysanayaasha ka sakow, immigrationku waxay farsamo yaqaanadoodu u bisil yihiin inay ogaan karaan qalabka electroniga ee nimankaasi haysteen waxa ku jira oo faa'iideynaya in la garan karo habka ay wax u qabtaan. marka wixii aanu ka helay wax ka mid ah ayaanu shaashadda aad ku muujin doonaa. sarkaal caydiid baa idiin present garayn doona. aad iyo aadna waa mahadsantihin.